hadalhaynta baraha bulshada ugu dambeysay YouTuber-ka weyn ee King CK oo sheegay inuu aad ugu necban yahay dhanka YouTuberada Babajey Ayub Carlo oo aad ugu farxay naceebka ka dhaxeeya Babajey iyo King CK. Babajey oo aan wili ka hadlin hadalka ka soo yeeray CK waa bilowga hadalhaynta aan idinkuga hayno arrimahaasi, balse ugu horeyn daawade share dheh muuqaalka dhanka YouTube-kana subscribe inoo saar, aad ayaad u mahadsantihiin. Aan ku bilowno ugu horeyn saacadihii la soo dhaafay ayaa baraha bulshada waxaa la isla dhexmarayay muuqaal oo King CK ku sheegayo in uu Babajey yahay qofka kaliya oo ugu necban yahay inta ku nool geyga Soomaaliyeed. Haddaba ma dhaba ama waa kaftan, cidna ma caddayn karto, balse arrintani ayaa waxaa horseed u ah ama sababteed lahaa Ayub Carlo oo ah ninka kaliya ee mashaariicdiisa tahay inuu su'aalo dadka ku weeraro isagoo u dhaqmaya qaab garsoore ah, balse dadka luqunta isku geliyo. King CK ayaa yiri Babajey waa nin jecel in la barto ama is-oysiinayo marka uu ku dhex jiro dadka dhexdooda. Dhanka kale Babajey ayaan wili ka hadlin arrintani. Haddaba muxuu aaminsan yahay? Jawaab ceenkee ah ayaa laga filan karaa? Waxaa xusid mudan Babajey inuu yahay mid aan hadalka dhibaynin oo wuxuu rabo iska sheego, balse laga yaabo inay isfahmaan. Ilaa iyo hadda lama oga midaasi. Wixii war ka soo baxa Babajey ama King CK halkan ayaa si toos ah idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaan u taaganahay waa qancintiina daawadayaal. Mahadsanidin.